waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta inooga timid dalalka kala duwan ee badan dhammaantood waa soo dhaweynayaa wakiilada Ethiopia iyo Turkiga iyo Djibouti ee halkan deganaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa Iqbaal Professor Iqbaal oo saaxiib la Somaliland oo in badan la soo shaqeeyayna aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dhammaan madaxda axsaabta golaha wasiirada firgudoonada odayaasha waaweyn ee salaadiinla madax dhaqan leh ee culimo leh ee ganacsatada waa soo dhaweynaa iyo mudakarka jooga jirweyn cashadooda waxaan u mahadnaqayaa guddidii soo qabanqaabisay xafladda 18 May 18 guurada sanadkan oo ka koobnay wasaaru iyo jarnada ciidamada iyo aqoonyahan iyo wiilal iyo gabdhaba waxaan uga mahadnaqayaa sidii hagar la'aanta ahayd ee muddo iyo dheeraad uga soo shaqeynayeen hawsha iyo sida u muujiyeen maalintaas qiimaha ay leedahay diyaargarowgooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha waxa wasiirka daaqiliga oo ay ka mid ahaayeen wasiirka ganacsiga wasiirka gaashaandhigga wasiirro badan iyo jarnada ciidamada kala duwan waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan gobollada Somaliland barasaabada gudoomiyayaasha degmooyinka ama meeyarada taliyayaasha ciidamada dadweynaha ku dhaqan gobollada oo dhan madax dhaqameed culimo ganacsato iyaga oo maanta si nabadgelyo ugu dambaal tegay qaranka Somaliland tale ilaa la yaado aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaan gobollada ilaahayna waxaan ugu mahadnaqayaa nabadgelyada ay noogu soo dhammaatay ayaanu ku mahadinaynaa intaa kadib hadal badan caawaran maayo waa mahadnaqiyo duco waxaan kula doonayaa inaan horta ka xariiqo haddaan nahay Somaliland oo caawa halkan ku dhan hadday tahay madax dhaqameed salaadiin hadday tahay culimo hadday tahay golayaashii qaranka hadday tahay ganacsatadii ugu magaca weynay hadday tahay aqoonyahan haween rag annagoo dhan waxaan doonayaa halkan caawa inaan baaq dheer ugu diro dalalka jaarkeena dhammaantood baynu nabadgelyo kula noolaanayno gaar ahaan waxaan u sii dirayaa Soomaaliya oo maanta muran xoog naga dhaxeeyo muddo 30 sanadooda waxaan xuduud ka wadaagnaa waa Puntland oo xad dheer oo 500 kiiloomitir aan wadaagno Puntland madaxdooda waxaan ugu baaqayaa Somaliland waxaan idin wadnaa nabad iyo walaaltinimo iyo inaynu xasilooni ku wada noolaan waxaan rajaynayaa inaanu khilaafta madaxdeena ka dhicin waxaan doonayaa inaynu noqono laba dal oo ay soo furan oo si walba oo ganacsi leh oo dhaqan leh oo aqoon leh isu wadaagsada waxaan diyaar u nahay oo nabadda niyadwanaag ka bilaabaynaa caawa waxaan doonayaa inaanu ilaamiyo inaanu diyaar u nahay inaan sii dayno maxaabiistii lagu soo xidhay dagaalkii Tubarra ee halkan ku xidhan iyaguna ay soo wareejiyaan wixii ay naga hayaan waxay la tahay inay xabsi ku jiraan inaanay waajib ahayn sidaa darteed waxaan codsanayaa iyaguna inay diyaariyaan waxay hayaan aynu hay-adihii ku shaqada lahaa ee hore inooga dhaxaynayaan waaqintaas ay ahayd inaynu arrintaa dhammayno xaggayaga waa ka diyaar idinkana taasaan idinka filaynaa taasoo noqonaysa tallaabadii u horreysay ee nabadda iyo soo dhawaasha aynu ka xidhinay taasina waa baaq nabadeed oo u dirayo madaxda Puntland waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qayb gashay